Israa'iil ayaa hadda soo saartay bayaan rasmi ah oo ku saabsan xabad joojinta Iran waxaana lagu yiri bayaankan Israa'iil waxa ay taageeraysaa go'aanka madaxweyne Trump ee ah in la hakiyo weerarada lagu hayo Iran muddo 2 toddobaad ah iyadoo shuruudo looga dhigayo in Iran ay si degdeg ah u furto marin-biyoodka Hormuz isla markaana joojiso dhammaan weerarada ka dhanka ah Mareykanka, Israa'iil iyo dalalka ku yaala gobolka. Israa'iil sidoo kale waxa ay taageersan tahay dalalka Mareykanka ee dadaalada Mareykanka ee lagu hubinayo in Iran aysan mar dambe haysan khatar nuclear gantaalo ama argagixiso ku noqon Mareykanka, Israa'iil iyo wadamada Khaliijka. Iiraaniyiintu iyaga dhankooda waxa ay ka hadleen xabad joojinta uu ku dhawaaqay madaxweyne Trump iyo dhanka Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa asna sheegay in Iran ay ogolaan doonto xabad joojinta haddii weerarada ka dhanka Iran la joojiyo. Waxa uu raaciyay muddo 2 toddobaad marin-biyoodka Hormuz waa furnaan doona waana suurtagal ayuu yiri tani waxay dhici doontaa ayuu yiri iyadoo la kaashanayo ciidanka qalabka sida Iran isla markaana la tixgelinayo xaaladaha farsamo ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Telefishinka Al Jazeera oo soo xiganaya war-saxaafadeed ka soo baxay golaha amniga qaranka ee Iran ayaa sheegay qodobada ay Iran la tagayso Pakistan oo Trump uu ogolaaday inay saldhig u noqonayaan heshiisyada lagu soo afjarayo dagaalka inay ku jiraan Mareykanka inuu ciidankiisa ka saaro dhammaan saldhigyada ku yaala bariga dhexe, in uu qaado dhammaan cunaqabataynta iyo in la sii daayo hantida Iran ee dibadda ku xayiran. Waxa kale oo ku jira magdhow buuxa la siiyo Iran